السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارة الشرفت لهي مeel kastoo caalamka joogtaan soo dhawaada. kani waa bogayga cusub cabdiraxmaan cabdullaahi xaaji dabcasa. waad u jeedaan waa beejkayga cusub. waxaan idinka codsanayaa intiina yarta oo ku jirta oo asxaabta ku cusub beejkaana fadlan sheer gareeya oo beejkan gaarsiiya walaalaheen saaxiibadeen akhyaarta kale si ayagu bal marka hore intaynaan insha allahu tacaala iswaraysan khiyaarta sharafta lahay bal aynu ku bilaabano aayadaha qur'aanka kariimka ah iyo suurat al-fath. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولا ليالي إلهي سبحانه وتعالى آيديس القرآن الكريم كآه أنا وانفع حقيقي waxaan idinkaga wadaa dalkii hooyo meel kastoo caalamka joogtaanba bishaarooyin aad u waaweyn ha maqlinina beenta iyo huuhaada iyo qabqablayaalka iyo Itoobiyaanka iyo Kenyaatiga iyo beesha dulaysan ee caalamka oo huuhaa idinku akhrinaya oo been iyo propaganda wada marsinaya. shacabka Soomaaliyeed waa geesiyaal waa haliyeeyo waa dad isjecel cuqdada qurbaha taalamata Djibouti oo noqotay saldhigga cadawga uu fariistay meesha Soomaaliya laga dudumiyay meesha shanta Soomaaliya laga dumiyay meesha cadawga laga kalkaaliyo meesha saldhigyada military oo cadawga meesha dhaqaalaha Soomaaliya laga burburiyo meesha maraakiibta uga soo duusho meesha diyaaraduhu uga soo duulaan meesha siyaasadda qalalaasaha ah carab iyo cajaba ay ka soo abaabulaan waa Djibouti weeyaan. Djibouti Francis baa haysta gumaysigii shalayna qaybiyay baa haysta. Djibouti Ethiopia u talisa
haddaad ogsoonaan lahayd iyo haddaadan ogsoonaynba walaalka Soomaaliyeed ee muslimka dadka huuhaada iyo beenta iyo qabiilka iyo galay iyo hawiye iyo daarood iyo isaaq iyo laandhilaani lagu mashquuliyay waxba ma oga waxay og yihiin male in yar koox yar oo amxaarada u shaqaysa oo xukunka haysata oo la yaqaano oo wallaahi oo billaahi oo tallaahi ninkii caqli loo iska sheegay run inuu yahay oo ganacsigii qabsatay oo dekedihii qabsatay oo aeroboorradii qabsatay oo immigration iyo socdaalkii qabsatay oo ciidamadii qaybihii kala duwanaa ku jira saraakiisha badankooda Itoobiya ayaa meesha dhigatay ma garatay walaalayaal waa niman number la toos u shaqeeyo weeye waxa weeye laakiin shacabku waxa ku jira saraakiil geesiyaal ciidamada ku jira waxa jira siyaasiyiin geesiyaal waxa jira ganacsato xalaal culimadii ma hadli karto afka laga xirtay waa la adoonsay ummadii qaracanka halka ka jira sicir bararka iyo gaajada iyo cabsida wallaahi billaahi tallaahi waxa ay xirtay oo god igu ritay oo islciyay oo ibahdilay maxaa ay ahaayeen su'aalihii la weydiinayay Itoobiya ahaayeen flight kala ii diyaaray in la igu qaaday Ethiopian flight airways Djibouti waxay ugu qabsaday Ethiopian bay ahaayeen niman doqon ma ah oo musabixiya ay ka mid yihiin laandhilaand iyo huuha iyo wax been ah ayay ku mashquuliyeen oo ku jiraan been hadii la kudmaayo been bay ku jiraan Djibouti baa gumaysata aan Hargeysa wallahi billahi tallahi Djibouti baa gumaysata Djibouti waa cadow Soomaaliyay cadow ma ahna cadow baa haysta Umar Geelle cadow buu shaqeeya Umar Geelle waa daba dhilif Umar Geelle reer Djibouti waa gumaystay Umar Geelle amisom asaga noo keenay Umar Geelle 4.5 asaga noo keenay Umar Geelle qaacid saldhigyo military balaya baas buu furay Umar Geelle burcad badeeda beenta saldhigyada waa Djibouti meelaha amisom ka duusha waa Djibouti meesha siyaasadaha Soomaaliya laga burburiyo waa Djibouti meesha dhaqaalaha Soomaaliya laga burburiyo waa Djibouti meesha Soomaaliya lagu kala xaraashto waa Djibouti Djibouti shacab muslim oo la adoonsada degan ilaahay guul iyo nasr ha soo furo afam xarigu ku hadla Umar Geelle and I'm sorry that I've been imprisoned in Djibouti I am wa ka xumay Ethiopian inay ugu xiran Djibouti Ethiopian inay awood ku leeyihiin Djibouti maamushaan aad baan wax xumay toosa lidiniri Djibouti waa la haystaa waa jecelnahay nama jecla gacal baan u nahay gacal nooma حبيب بانوناي عدو بينو نقدين عدو بين اوهليين تام ميل ku qoro far waaweyn shanta Soomaaliya meesha laga gumaysto maanta waa Djibouti walaalay reer Djibouti ilaahay u noqda oo toobad keena badda Soomaaliya biriga Soomaaliya Soomaali weyn ka shaqeeya xornimadeeda midnimadeeda ilaahay ka baqa godbad galaysan adduunkaana wad ka tagaysan 3,000 ee qof ee halkan ku jirta waxaan leeyahay isjeclaada gacmaha isqabsada cadow hay soo noqonina Soomaali waa daashay Soomaali waa mid Soomaali weyn waa mid qura gumaysi ka daashay haddaad dhimanaysa dhareerka waa la iska duwa anu hadda ma calaacalayo waa la garaacay qoorta iqalloocan duburta iqalloocan qoraha ay jajaala haysata u soo ducee ilaahay inuu guul ka siiyo niman doqon ma ah oo musabixiya ay ka mid yihiin laandhilaand iyo huuha iyo wax been ah ayay ku mashquuliyeen oo ku jiraan been hadii la kudmaayo been bay ku jiraan Djibouti baa gumaysata aan Hargeysa wallahi billahi tallahi Djibouti baa gumaysata Djibouti waa cadow Soomaaliyay cadow ma ahna cadow baa haysta Umar Geelle cadow buu shaqeeya Umar Geelle waa daba dhilif Umar Geelle reer Djibouti waa gumaystay Umar Geelle amisom asaga noo keenay Umar Geelle 4.5 asaga noo keenay Umar Geelle qaacid saldhigyo military balaya baas buu furay Umar Geelle burcad badeeda beenta saldhigyada waa Djibouti meelaha amisom ka duusha waa Djibouti meesha siyaasadaha Soomaaliya laga burburiyo waa Djibouti meesha dhaqaalaha Soomaaliya laga burburiyo waa Djibouti meesha Soomaaliya lagu kala xaraashto waa Djibouti Djibouti shacab muslim oo la adoonsada degan ilaahay guul iyo nasr ha soo furo afam xarigu ku hadla Umar Geelle and I'm sorry that I've been imprisoned in Djibouti I am wa ka xumay Ethiopian inay ugu xiran Djibouti Ethiopian inay awood ku leeyihiin Djibouti maamushaan aad baan wax xumay toosa lidiniri
jabuuti waa la haystaa waa jecelnahay nama jecla gacal baan u nahay gacal nooma ah xabiib baan u nahay cadow bay noo noqdeen cadow bayna u hiliyeen taa meel ku qoro far waaweyn shanta Soomaaliya meesha laga gumaysto maanta waa jabuuti walaalahay reer jabuuti ilaahay u noqda oo toobad keena badda Soomaaliya biriga Soomaaliya Soomaali weyn ka shaqeeya xornimadeeda midnimadeeda ilaahay ka baqa godbad galaysaan adduunkaana wad ka tagaysaan 3,000 ee qof ee halkan ku jirta waxaan leeyahay isjeclaada gacmaha isqabsada cadow haysu noqonina Soomaali waa daashay Soomaali waa mid Soomaali weyn waa mid qura gumaysi